ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمانتين مفاد قبطان نبعن سنتين مال كستا حلي كستا ساعات كستا إذنتا الله سبحانه وتعالى يدكو حفتيه ويلكم باك سو دوادا وإن جيسكو سو نقنا إيا نادر فين مع فماد قبطان من نبعن سنتين إلهي وحكرتشاني مال كستا جوكتان إنا نمع على كجرتان الحمد لله نقا آذا ولدا نهي دما ولا الله كذا لك صبيرو ويلكم كسو دوادا ما لين كتشاليهاي ولا الله يقهر ويلكم باك دمانتين جساك الله خير فضل فيديو قلقتنا وصار سبسكرايب أنشار كري أنكو صبير فاملي قانا يوتيوب إن شاء الله ciidkii ma noqotay over budget lacag aadan ugu talagelin ma isticmaashay budget ma lahayd mise waxba kuma xisaabsanayn waxba uguma talagelin waxaad aragtaa adiga akoonkii maran yahay ama dukaamadii deen kasoo buuxsaday inteena badan faamiliyadeena markaanu yarareen waxaynu ka nimi family ciidku uu big weyn ahaa ilaahay maasha allah hooyadee khayr badan ha siiyo waxaan kusoo koray gurigeena maalinta ciidka sida inaga soomaaliyeed kasta guriga la sharaxo alaabada la bedelo guriga decoration lagu sameeyo dhar cusubna loo gado inaanu ciidka sugu jirnay xaqul ciid faamiliga dadka dhan xaqal ciid lagu siin jiraan kusii tashan jirnay la xaqal ciidka jeclaaya markaan yaraa tolomiyaan lacag jeclaa weligay soo maadaama markii aan soo weynaa qurba yimi aan ciidna xaqal ciid siinay waxaan bilaabay traditional dhaqan ah inaan ciidka wax kasta aan rabo waa gadan karayaa haddaan awoodo oo aan rabo markaan laakiin ciidka anigu waxaan dhaqan ka dhigtay maadaama aan carafta jeclahay xilli kasta aan rabo aan baarfuun aan ka helaan aan ciid walba waxaan gataa baarfuun aan xaqal ciid nafteeda u siiyo qof kale ima soo gado haddii qof kale alxamdulillah alaabka laga keeno gud laga yaabaa inaan 10 shay oo kale gato laakiin baarfuunku mar walba ciidka traditional buu inuu waxaan idinla qaybsanayaa labadii baarfuun aan ciidka gatay waxaan rabaa inaan isku dhiirigelino inaan ciid sugun oo inagu aynu wixii aynu nafteena rabno special markay noqoto ciidku kale aynu gadno aniga waa caraf jecla ilaahay iga cafiyo waxaan u malaynayaa in dembiyada ugu waaweyn galo inay carafta ka mid tahay ilaahay naga cafiyo dumar baynu nawa garanaynaa inuu dembi weyn yahay marka laba baarfuun baa soo gatay baarfuunkaasaan soo gatay oo aan ka helay waa ka Prada waaye isaga iyo xabada yaro giftigaaba la socday ama boorsadaada aad ku qaadan kartid kaligeeda ma aqaan $30 wax la gado karin taas baa ku jirta marka baarfuunkan aad iyo aad ayaa lagu helay laakiin baarfuun very light ah maaha baarfuunada lightka ah oo kale oo aad ka khafiifka ah ma baarfuun yaro culus weeye laakiin aan aad culus dhaladiisa quruxdeeda soo ma aragtaan marka ciidkii yara kaasaan gatay Prada-daasaan gatay sidoo kalena on sale bay 15% off bay ahayd anigu badanaa baarfuunada waxaan gataa markay salka yihiin haddaana markaa ku khasbaneen soo baarfuunkayga ciidkii yaraa waa ka maasha allah bahasha yar baa la socota ase gifti ah oo yan bahasha yar oo rasiidka xataa waxaa ku jiraa weli waa kaa tayar ay soo siiyeen way kabyada iyo waxyaabaha hadda ragatay tayar baa la socda ani badanaa waxaan sameeyaa markaan moolasha marayo ayaan baarfuunada isku buufiya ama gacantayda ku buufiya aniga baarfuunada qayban markaaba ka helaa kan maalintii ugu horreysay aan isku buufiyay baan ka helay dhowr jeer oo dambaan ku noqday haddana markaad moolasha tagtid isku fiiri kan laftigiisa ayaa waxaan u malaynaya at least 4 of at least ilaa 3 ilaa 4 mid khafiif yahay mid rasiim yahay mid light yahay mid isku fiiri isku wada mid maaha ciidkii hadda aha oo dhamaaday runtii baarfuun ma aan soo gatay ma jirto laakiin waxaa jirta baarfuun aan walaashay ka jeclaaday oo aan dalbaday oo iimi oo aan isticmaalin ciidka ugu talagal ciidka weyn soo baarfuunkan maasha allah walaashay ayaa ka haysata iyagoo dhowr ah insha allah bismillah kana hadday iyo ogolaato mar baan idin la qaybsanay waa baarfuun aad iyo aad u carfan xoogaa qaali weeyaan laakiin taab baarfuunada ku jirmays marka waa kan kaasoo ku yimi boxkaasoo ku yimi gabadha yaroo quruxda badan halkaa fadhida weeyaan kaasoo ka yimi Delena kan isagoo kaligiisana waa ka baarfuun aad u caraf badan weeye weliba kaas xoogaa uu yaro culus yahay kan aad uma cusla maasha allah baarfuunkan very haddaa rabtaan xataa review baa ku sameynaya maasha allah waa kuwa labadii baarfuun ilaahayna cafiya sidayda dadka carafta jecel soo insha allah soo waxaan rabaa maanta inaan idinku dhiirigeliyo inteena badan haddaynu dumar nahay waxaynu nahay qofka ugu dambeeyo naftooda wuxuu qabta urteena iska hormarnaa faamiligan iska hormarnaa ninkaad iska hormarsa dadkii lacagaha u diri jirtay baad iska hormarsa waxaa laga yaabaa faamiliga dhan guriga dhan inaad usoo gadid ciid dhar ciid aad adigu naftaada ilowdid sidoo kale waxaynu inteena badan sugnaa in qof kale inuu gifti inoo keeno inuu qof kale waxayna siiyo gifti ina siiso inaga nafteena ma gifti karayno so insha allah bismillah kan maanta waxaan idinku waaninayaa idinku dhiirigelinayaa gifti inaad naftaada siisid oo isbartid u dhaqan kuu noqdo ilmahaaga even xataa caruurtaada inaad something oo gifti siisid odaygaga siisid ciidadka oo kale inuu qof kale ka sugi lahayn inuu waxna siiyo waxaan muhiim inaynu nafteena ka bilowno oo nafteena inagu gifti siino labada ciid waa labada kaliya holidayda islaamka aynu leenahay sidoo kale xiliyada markaad wax samaysid markaad milestone gaadhid markaad horumar gaadhid markaad iskuul dhamaysid markaad semester dhamaysid markaad programaad soo wada dhamaysid markaad
shaqo aad rabtay gaadhid, markaad projected aad samaysid, markaad business aad rabtay samaysid guul gaadhid, every time aad guul gaadhid waa inaad naftaada dhiirigelisid oo wax siisid. sababtoo nafteena markaynu wax siino waxaynu leenahay nafyahi maasha allah you did good, nafyahi waad horumar baad gaadhay, nafyahi waad dadaashay. so inagana waxayna gelisaa dhiirigelin. haddii maanta dhan waxaynu for example kale maanta dhan haddaa intaad soo shaqaysa shilin kasta aad soo shaqaysid uu kaa baxo oo aadan waxba haysan, disappointment baa kugu dhacda, niyadjab baa kugu dhacaa. nafteenana waa saasoo kale haddaynu wax kasta aynu gaarno haddaynaa nafteena u sheegin oo odhan nafyahay si fiican baad yeeshay, nafyahay waad qurux badan tahay, nafyahay fariid baa tahay, nafyahay jidid waxaanaad samaysay, nafyahay waad u qalantaa, wax kan waad qiimaad leedahay, waxaanaad qabsat maasha allah, iskuulkaad kusoo dadaalashay waad gaadhay, shaqadii waad samaysay, businesskaad rabtay inaad furtay waad gaadhay, caruurtii waad korisay maasha allah, ilmahaaga maanta high schoolkii baa dhameen, ilmaha markaas adigana tirada qofka intaa dadaalayo ilmaha korinayo waa adiga, qofka intaa ilmaha dabada ka wada soo xulba qaadaya waa adiga. soo nafteena inaynu dhiirigelina waa muhiim, inaynu wax u qabano heer markaynu gaano inaynu dhahno amdaan maasha inaynu cid kale ka sugno maaha. markaan iskuulka dhiganayay waxaan ahaa every semester kasta markuu iga dhimaado something anigoo shilin haysan, lacag maan haysan jirin, ardayad baana lacag yaro biilasheeda guriga ka badan samayn jirin, biilkayga yar. haddana saasay tahay every Friday kasta marka aan dhameeyo wiikaas oo sabti soo galayso Fridayda relax baan samayn jiray, ama movie aad beriga aad baan movie jeclaa, ama movie aan aado ama casho aado something oo leeyahay alxamdulilah wiika waan dhameeyay, wiikan am dhan wixii ilaygu talagalay. semesterka markaan dhameeyana wax fiican baan nafteeda u qaban jiray, khasaba inaan because lacag maan haysan, laakiin wax aan ku xasuustaa nafteeda casho fiican noqotaya vacation yaro miskiino xataa magaalada banaankeeda I used to do something baan samayn jiray oo nafteeda aan leeyahay alxamdulilah aan daad u dhiirigelin jirtay because waxaan oran jiray maasha allah semesterkii dhamaystirtay, maasha allah imtixaankii you did well, wax fiican baad keentay, sanadkii wuu kuu dhamaaday, horumar baad gaadhay, shaqadii wax fiican baad jeentay, project iyo qofna kale kamaan sugaysa, sababto cid wixii samaysaa ma jirin. marka aniga nafteeda inaan u sameeyo baad u dhiirigeliyo. marka inaga inta badan qof baynu sugnaa, qof baynu waxaynu ka sugnaa inuuna yirahdo waad qurux badan tahay, inuuna yirahdo fariid baa tahay, inuuna yirahdo maasha allah you did well. waa fiicanta in lagu yirahdo, laakiin it's good inaad naftaada adiga bartid. qofkaa kale waxa ku siinayaa validation bay ku siinaya, laakiin marka aad naftaada ogto adiga u sheegtid naftaada oo tirahdid okay alxamdulilah, even markaad moral jabsantahay ood aragtid shaqada markaad udido kale always naftaada u sheeg insha allah maalin ka bixi doonaa jirta, waan samaynaya because waa u baahanahay, carruurtan ku korinaya guriga nolosheeda u baahan. so markasta oo xaalad adag ku jirtadaada u sheeg inay ka bixi doonto insha allah bismillaah. shaqadan way dhib badan tahay laakiin waa u baahanahay because biilasha bay bixisaa hadda situationka aan ku jiro. so nafteena aynu dhiirigelino, inta badan been baynu nafteena sheegnaa, wax aynan inagu ninku inoo keeni bayno maxamed baa ii keenay ninkaaga because been baad naftaada u sheegaysa, dadka waxba kaama gan, laakiin naftaadi waxaad leedahay wax aan ninkaaga kuu keeno wuu ii keenay, waayo credit aad u siinaysa aanu ku siin, soo gado anaa soo gatay dee, hadduu ku keenana thank you waad ii keentay. laakiin always nafteena waynu xaqirnaa, wixii aynu inagu qaban lahayna waxaynu jecelnaynu qof kale inoo qabto sidii inaynaan inagu waxba qabsan karin. naftaada markaad jacayl tustid, markaad qurux tustid, markaad xaq kasta aad rabtid inaad samaysid aad adigu samaysatid, you don't need qof kale inuu kuu sameeyo. qofkii kuu sameeyana you appreciate, laakiin waa ogta waa waxa adiga samaysatay samaysana kartid. qofkaasi koobkaagii biyuhu iyo sharaabka kugu jiray oo haafkaha ayuu xoogaa kugu daray, laakiin koobkaagu muu banayn. caagadaas maad arag biyihii haafkaas ayuu kusii jiraa, caagadaa biyihii igu jira anaa cabay, hadda haraadima hayo, caagadii biyaheeda waa dhamaystirtay, intaa yarba igu jirta. qofkii intuu maanta ii yimaada caagadaa biyaha ii daamiya wax badan ima taraysa because already waan haraadku iga bacay. anaysa biyihii caagada igu jiro hore baan cabay, laakiin haddaan haraadanahay oo intaa yaroo keliya aan haysto oo anuga haynaan igu filan, qofka ii yimaado ii buuxiy waxaan leeyahay maasha allah qof wax weyni tara weeyaan. laakiin qofka anigoo dheragsan wax iigu tara waxaan leeyahay thank you, laakiin baahi weynu ma qabo. so markaynu nafteena wax u qabano, marka adiga naftaada iskuul aadid, shaqo aadid, gaarigaaga samaysatid, gaarigaaga garatid, gurigaaga hagaajisatid, wax kasta aad qabsatid, aad qabsan kartid, aad ogtahay inaad qabsan kartid, khasab maaha aad qabsatid ama qabsan kartid, qofkii kuu yimaada waxaagiiba wax kuugu daray waxaan haysan kumuu siin because adiga ayaa samaysana kara. waa inaynu nafteena u sheegno ogaano inaynu wax kasta qabsan karayno, way fiicantay. guurka wax fiican weeyaan, ninkaagu inuu kuu shaqeeyo wax kuu qabto, gabadhaadu inay ku caawiso way fiicantay, laakiin you have to be inaad adigu keliga istaagi kartid, inaad ogtahay qabsan kartidna qofkana maasha allah markuu ku yimaado noloshaada way isku sii macaanaanaysaa, laakiin awalba way kuu macaaneed. maanta dhan haddaadan habi ahayn ood habi raadinayso qof isku xidhin. wiilbaa beri kelmad wuxuu igu yidhi, waxaan ku idhi hebelow
walaalo maxaa iskuul aad weyda very smart baa tahay markaas wuxuu igu yiri markaan guursado baan iskuul aadayaa markaa wiilkaasi gabadh buu tageen wuxuu igu yiri markaan guursado baan iskuul aadayaa 20 years baa kasoo dambeysay maanta weli halka berigi taagna tagsiilo tagsiga buu wadaa 10 naagood ka dambeysay guursaday iskuul lama aadan halkii beriga aan ku ogaa buu taagan yahay happiness-kiisi iyo wuxuu qaban lahaa wuxuu ku xiray marka aan guursado yes sometimes when you learn okay marka aan guursado xaaladaas isbedelaysa laakiin yaa ku ballan qaaday markaan dhoofo bay waxaas isbedelaysa yaa ballan qaaday maybe situationka hadda ku jirto situationka markaa dhoofta aan isku mid ahayn mani dhalinyaro oo wadankeena joogta oo wada waxbartay baa jira oo qaybteed PhD sitaan maqurba yimaadeen way shaqaystaan waxbay barteen businessay leeyihiin maasha allah nolol horumar bay gaadhay kuwo qurbaha 30 sannadood jooga baan A iyo B isku daray karin so markasta meel kasta aad joogto ha ku xidhin nolosheena waxaynu ku xidhnaa situation and condition muhiimadeedu waxa weeyaan special numero yeena sugan qof kale naftaada reward garay naftaada u sheeg waxa ay qaban karto wax kasta oo ay qabatana naftaada amaan adigu is amaan maaha qasab inaad faantidu meel soo fadhiisato heblaay geela faarax baan reer hebel baan ka dhasho halkan aan badan lafta geela badhaan dududu xasdad qof qabiilkiisa ku faamay you have no talented ana ku sheegaya haddaad intaad meel soo fadhiisatid qabiilkaaga ku faantid talented kale ma lihid wax kalaad ku faantid ma haysatid because adiga nobody baad qabiil baad ku faanaysaa qabiil alla kaa dhaliyo oo ka dhalano dooran yaad doortay inaga ma dooran qabiilkan ka dhalanay taas muhiimada maaha waxaan ka hadlayaa inaad adigu tiraahdo okay maasha allah naftaada tiraahdo naf yahay aad amaantay naftaada tiraahdo wax fiican baad samaysay wallahi simitaasku iskuulka aad bay ugu adkaa wax fiican baad samaysay maasha allah waad dhamaystirtay wallahi ilmihii sanadka waa starka baan kula jirna ciyaalku sanadka way ugu madaxadkay laakiin alxamdulillah waan samray ilaahay waa i hagaajiyey quraanka sanadka way ugu adkaa laakiin alxamdulillah waa dhamayso yani naftaada inaad u sheegtid you did it maasha allah waad samaysay muhiimadeenu waa taas ma aha inaynu isfaanino halkan aan ka booda halkan aan maray sidaan aan yeelo dhadhadha no waa inaynu nafteena dhiirigelino si nafteenu ay u hesho ama wixii aad jeceshahay marka aad samaysid waxay ku siisaa dhiirigelin wixii wax ka badan aad samaysid laakiin naftaada markaad yastid ama wixii aad samaynaysid aad arki weydid natiijadeedii waad murugootaa niyad xumaa kugu dhacda maanta hadda wax soo ururiyo oo wixii anfici waayaan bini aadamana waa niyad jabayaa naftaada wax kasta ay samayso haddaad ka niyad dhacdid niyad jaba ku dhacso wixii ma sii wadi kartid so insha allah bismillahi karin videogeega kan waxa weeye inaynu isdhiirigelino inaynu nafteena dhiirigelino inaynu nafteena u noqono hogaamiyaheedii inaynu u noqono dhiirigelinteedii inaynu role model inagu isu noqono aynu inanu waad samayn kartaa naftaada amaantid wax siisid quruxdaada noloshaada faamiligaaga wixii dani kugu jirto aad horumarkeeda ka talisid adiguna aadan qof kale sugin inuu ku keeno oo aad ku soo qaadatay qofkii kale oo ku keenana thank you laakiin ka bilow naftaada inta badan waxaynu sugnaa inuu qof kale waxay noo qabto maantana hadduu qofku ammaanayo oo qalbigaaga aadan aaminsanayn waxba ku tari mayso maantana hadduu qof millions dollar ku siin aadan manage garayn karin waxba ku qaban mayso haddii maantana qof kuleeya waxbarasho aad iskuul aad halkan ka aanay adiga kaa sugan ama aadan aaminsanayn inaad samayn karto waxba kuma qabanayso gabadha adduunka ugu qurux badan ugu qiimo badan baatay daqiiqda yar baa laga yaabaa inay wax ku tarto ama niyad waxaa laga yaabaa inaad odhan maxay beenta ay ku sheegaysa waan sugay qofkaan hay waxba kuma tarayso just words oo qofku yiri laakiin markaad aaminsan haddii aan hadal xun ku idhahdan waa ku dhaawacaysaa laakiin markaad aaminsantay waxaa tahay qof kale ku yirahdana thank you badan ayna already baad leedahay waa ogaabaad niyadda ka odhanaysa alxamdulilah marka aynu daciifka nahay ma aragtay qofka bini'aadmiga marka ay kaa jajaban tahay kalsoonidaadu ay low tahay wax ku haystaan adigu heerkii aad taagneed ama aad rabtay aadan taagneyn so ma aragtin biniaadamku kaa faa'iidaystaan in qof kugu dul socdo in qofku xumeeyo in qof kaa faa'iidaysto because xaaladda aad ku jirtid markaa wuxuu ku akhriyaya daciifnimadaada wuxuu arkaya in aad dhibaataysan tahay qofkuu kaa faa'iidaysanaya qof kasta oo inaga mida oo dhibaato soo maray maalinta uu dhibaataysnaa qofba xumeeyey ama isagoo qofkaas qofba intuu dhib ku jiro ku dul socday oo sir ka faa'iidayso ama kugu caayay ama kugu yeesay ama ku xumeeyey qof aad taqaanay qof faamiliga whatever u noqday bini'aadamku markay ku arkaan inaad daciif tahay inaad dhibaataysan tahay xataa daciifnimadu ma aha isjinsiyan maybe xaaladaad markaa ku jirtid inaad dulman tahay inaad nolol xun ku jirto lagu dulmayo inaad dhibaataysan tahay in marxalada kusoo horsta inaad caqabad xun ku jirtid in xanuun ku hayo in kalsooni daro jirto dadku they can read it way ka akhriyayaan kaa qofku xumin xilligaasu dadka faa'iidaysta innaga dhana waynu soo marnay xilli aynu dhibaataysnayn oo qof aynan ka filanayn ama qof ina xumeeyey ama inaga faa'iidaystay hadal aynan
qalmin laakiin that timeka iyagu inagu yasaya uu sameeyey laakiin marka aad isku filaanshad gaadhid adigu kalsooni qabtid xaalad kasta oo dhibaato kasta kusoo fursaartana waad ka bixi kartaa insha allah bidmillaahi karin muhiimadeenu waxa weeyaan insha allah bidmillaahi karin aynu nafteena inagu dhisno nafteena wanaajino inaynu xasiino inaynu quruxdeena nolosheena more important xilliga inoo gaadha aynu ruwaad garayno aynaan cid kale ka sugan nafteena na fahmaan insha allah waad guulaysatay so insha allah bidmillaahi karin videoga kan waa iga dhiirigelin igamaha baarafuunada something oo dhaqan inoo noqon because always haddaynu dumarnahay waxaynu sugna qof kale inuu waxna siiyo waxaynu sidoo kale nahay dadka ugu dambeeyo oo naftooda keergareeya shil maanta haddaad haysatid naftaada qof kalead ka hormarinaysa intaad saa samaynaysidna naftaada always waxay noqonaysaa qofka ugu dambeeya way fiicanta inaad danaysta noqotid oo naftaada meelka qaybtood ka hormarisid sababto haddaadan naftaadu daryeelin qofka lama daryeeli kartid haddaadan naftaada wax cunin caafimaadkaaga ka shaqayn caruur ma korsan kartid nin ma haysan kartid xaas ma haysan kartid family waxbuu ma qaban kartid xaalad kastoo kusoo saarta kama bixi kartid because adiga baad daciibsan oo naftaadii hawshaadii gabay ama u dadaalin laakiin marka adigu aad caafimaad qabtid wax qabsatay noloshaada og tahay hadbay isku tahay ayaad qof kalena wuxuu qaban kartaa so insha allah bidmillaahi karin intaan video kale kumayno khayr ayaa idin rajaynaya fadlan videoga loogta noo saara subscribe aan share garay nolol aad jeclo nolosha aad ku nooshahay aan samayso nolosha adiga aad rabtid waad samayn kartaa ilaahay aamin naftaadana aamin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu